في عبادة إله سبحانه وتعالى لبدي أمر أو أقدرنا أمر ليس أمره يوح ليس كرابه وحا أقدرا وحوي إن لقوا فره عبادة إله سبحانه وتعالى أمرك أقوين ولقار ريبنا وإن هذا إله سبحانه وتعالى أشريك يلين عبادة ديسا وحكو حجي الله سبحانه وتعالى لبدا والد له إحسان فله ووصينا الإنسان وبالوالدين إحسانا أيضا كان الله سبحانه وتعالى وحكو يري ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا إنسان كوحان فرينا أولا فري لبدا والد إنه إحسان أفره يعني إنه وناد إيه بار النمو إيه تحقلين إيه قدرين إيه احترام إيه أديك إيه طاعد إنه كل الصعوده لبدا والد هذا الشيء markii sidaa si guud ahaaneed loo faray ayaa hooyada marka si gaar ah Allah subhanahu wa ta'ala aayad badan uu tafsiiliyay iyada xaqeeda oo si gaar ah leen waxyaalo badan ayay aabihii kala gaar noqotay iyaga oo labaduba ku shirkoobay qodobkaas si gaar ah uga hadli doona insha Allah oo kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan وبالوالدين إحسانا وحو إلهي اسكو حريري عبادتيسي ونفري إنه استقع عبادة أخالص يلنه إيوه إحسان كي والدين تلو فلين ولما إلهي سبحانه وتعالى وحو كحريري بأضاس وبالوالدين إحسانا مروا البضا حريرين إحسان حرير صن وهذا لدو التاقنتهي إيا طاعد لدو التاقنتهي وحي عن معصية هين إيا قودن iyo dhinac walba oo wax wanaaga aad ku xiriirinayso inuu noqdo xiriir arin aan kala go' lahayn oo aad la dul taagan tahay oo aad la dul joogto oo aad ugu adeegayso oo aad ku qadarinayso oo baarinimadooda aad la dul taagan tahay inuu noqdo arinkaas waxa kale halka laga fahmayaa inuu noqdo ihsaankaas sidayan adigaba ku dayici jirin markii aad yarayd ooyan meel cidla kaaga tagi jirin inaadan meel cidla kaga tagin meel cidla ah inaadan kaga tagin zamanadan dambe walaalayaal waxa badatay xuquuqul waalideynka waana calaamaadka saacada waxa badatay ninku inuu ilmihiisa ka hormariyo oo iyaga raali gelintooda wax walba ku bixiyo oo iyaga uu maaragtay xoolo iyo tabar wuxuu hayo oo dhan geliyo waalidkuna ay iska yeeshaan wixii hadhow laga maarmaana wixii laga maarmi waayo inay iyaga maaragtay haddii guri la rabo haddii lacag la rabo haddii dahab la rabo haddii xoolo kale la rabo haddii meel wanaagsan la seexanayo haddii meel loo dhoofayo haddii meel la aadayo kullu waxaa leh ilmihiisa iyo xaaskiisa ama waalidiinta wixii hadhow intaa ka soo hara oo futaadka ah haraaga wixii soo hara ayaa maaragtay iyagu ay wax ku leeyihiin arrimahaas waxay noqdeen arrimo shaa'ic ah oo badan oo fara badan waayadan dambe iyo zamanadan dambe waana arrin halisa oo mawaasiintii isku qaldaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka manaasishuu dhigay iyo qof walba meeshuu dejiyey aan la dejinayn allah subxaanahu wa tacaala waalidiinta u ixsaan falidooda iyo nafaqadooda cibaadadiisii buu ku xiriiriyay Allah subhanahu wa ta'ala baynama ilmaha hal meel ama laba meel adiga lagaaga dardaarmay laakiin waalidiinta la adkeeyey dardaaranka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka dardaarmay ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه waxaa marka loo baahan yahay walaalayaal in ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidiinta meeshuu dhigay iyo dardaaranku ka dardaarmay in la adkeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dardaarankiisa haddaan la adkayn waxaa ka dhalanaysa alla subxaanahu wa tacaala inuu caroodo
hadduu caroodana alla subxaanahu wa tacaala waxbuu ciqaabaa naar buuna leeyahay alla subxaanahu wa tacaala uu dadka cusaada ah ee caasiyey awaamirtiisa ka leexday oo alla subxana wa tacala u diyaarsaday walidaalika ayaa arrinkaasu arrin halisa yahay haddii aan xilla iska saarin oo la dareemin ama nebiga calayhi salaatu wasalaam dhowr xadiis baan ka soo qaadanaynaa bal isaguna meesha uu dhigay waalidiinta iyo ixsaan falidooda waalidiinta u ixsaan falidoodu waa sabab weyn oo jannada lagu galo wey albaabada jannada albaabada ugu waaweyn ayay ka mid tahay waalidiinta u ixsaan falidooda baari u noqoshadooda inaad ku gasho oo acmaaloo dhan ka horaysa acmaaloo dhan ka hormariya nebigu calayh isalaatu wasalaam siduu leeyahay abu hurayra radia allahu canhu muslim iyo tirmidi ba siday warinayaan wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ragima anfuh uma ragima anfuh uma ragima anfuh yacni qofkaasu waa qof dulloobay oo afka ciidda la galay dullinimo oo dhacay oo kufay oo khayrka xaggiisiiba aana nasiib ku lahayn waan yaabay abu hurayra radia allahu canhu uu yidhi waan yaabay man yaa rasuula allah waa kuma kan saa u dulloobay oo hoogay oo halaagsamay qaala man adraka waalidayhi cinda alkibar axadahumaa aw kilayhima qofkii soo gaaray labadiisii waalid oo weliba da' ku soo gaaray midkood ama labadoodiiba uma lam yadkhul iljanna oo haddana aan janno gelin say u suurtoobi kartaa macnuhu waxa way say ku dhici kartaa qof janno haystay oo jannadii albaabkeedii geli waayey say ku dhici kartaa waa dullinimo iyo ayaan daro iyo hoog iyo halaag marka waa sabab weyn oo janno lagu galo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabada jannada uu furay arrin kale waa arrimaha ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha ugu jecel yahay ayuu birulwaalideynku darajaadka ugu horeeya ka gelayaa sida ku cad xadiiska cabdullahi bni mascuud radia allahu canhu ee bukhaari iyo muslim bay warinayaan wuxuu leeyahay sa'altu nabiya sala allahu alayhi wasalam ayu lcamali axabu ila allahi camalka kee ilaahay ugu jecel yahay qaala alsalaatu calaa waqtiha alsalaatu calaa waqtiha salaadda oo waqtigeeda lagu tukado qultu uma ayu maxaa ku xiga rasuulkii allow qaala biru lwaalidayn qultu uma ayu qaala aljihaadu fi sabiili اllah waa xadiis mutafaq calayh xadiiskaas wuxuu geliyey darajadii labaad ayuu geliyey bal xataa jihaadkiibuu ka hormariyey axaadiis kalena way ku cadday inuu jihaadkii xataa ka horeeyo sida ku cad xadiiska cabdullahi bni camr bn caas radia allahu canhuma wuxuu yidhi aqbala rajulu ila اnabiyi salى allahu alayhi wasalam nin baa nebiga alayh salatu salaam u yimi faqaala ubaayicuka cala alhijrati wاljihaad abtaqi اlajra min allahi tacaala waxaan kugula baayactamayaa oo beeca kugula gelayaa ballan adag kugula gelayaa rasuulkii allow jihaad iyo hijro inaan kuu soo hijroodo anuu ajar ilaahay kaga rabaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi intaanu su-aashii uga jawaabeen hal min waalidayka axadun xay labadaadii waalid cidi ma ka nooshahay mid ma ka nool yahay qaala nacam bal kilaahumaa labadoodiiba waa joogaan buu yidhi qaala wuxuu ku yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam fatabtagi alajra min allahi tacaala oo ajar baad ilaahay ka rabtaa qaala nacam qaala faarjic faaxsin suxbatahumaa sow ajar ilaahay kama rabtid oo ma raadinaysid oo hijradan iyo jihaadkan aad leedahay waan kugula beeca tegayaa waxaad ka rabtaa ajar ilaahay haa noqo oo iyaga wanaag iyo ixsaan kula soco suxbatahumaa la socod way ku lamaanaan maaha
xaggaasan ka tuuri anna xaggaasaan aadi mashriq iyo maqrib baan kala tuuri warna kama hayo waxna kama hayo maya wuxuu yidhi fa axsin suxbatahumaa la socodkooda iyo la jirkooda hagaaji iyo adeegooda waa xadiis muttafaqan calayh ah muslim baana lafdigaa iska leh riwaayad kaleeto wuxuu la yidhi nebigu alayh salat salaam markuu ninku u yimi oo jihaadka uu u idin dalbaday inaan kula jihaad galaan rabaa rasuulkii allow qaala wuxuu ku yidhi axayun waalidaak labadii ku dhashay ma nool yihiin qaala nacam qaala fa fiihimaa fajaahid iyaga ku jihaad yacni jihaadkaagu waxa weye iyaga inaad u ixsaanfasho u baarifasho u adeegto hagaajiso wanaajiso ayaa u noqon xadiis afraad nebigu calayhi salaatu wasalaam oo tirmidi uu sanad saxiixa ku wariyey wuxuuba caddaynayaa waalidiinta raalinimadooda inay raallinimada ilaahay ku jirto caradoodana carada ilaahay subxana wa tacala inay ku jirto bimacnaa haddii waalidiintii raalli kaa yihiin oo qalbiga ay kaaga ducaynayaan ilaahayna subxana wa tacala raalli buu kaa noqon haddii ay iyagu caraysan yihiin oo qalbiga wax ku haysta ya waalidku badanaaba ma muujiyo caradiisa hooyadu khaasatan waxa weeye insaanka ama makhluuqa ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan korkiisa uu saaray oo ku abuuray oo diyaar u ah inuu wax walba huro waxna aanay uga soo noqon haba yaraatee makhluuq kasta oo aad wax u wanaajiso oo wax u samayso xaaskaaga ilmahaaga asxaabtaada tolkaa dadkaa kullu nin walbi waxa weye waxbuu kaa rabaa hadduu waxa kaa waayo ku nac laakiin iyadu ma ku jirto waalidkaa kuma jiro bani aadamka adduunka ugu liita haddaata ugu nacsan waa ku rabaan waa ku jecel yihiin waa ku koolkoolinayaan cerkay ku geynayaan xidigaha ayay ku saarayaan wax walba haddaad dadka siiso oo iyaga aan waxba uga soo noqon oo ay kugu soo tacbeen oo kugu soo rafaadeen oo dartaa ay dhiig uma tageen isla mar ahaantaas haddana diyaar waxay u yihiin weli inay wax walba bixiyaan oo kuu huraan adiga waa makhluuqa sidaasah oo aan waxba doonahayn waa makhluuqa sabirkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala un keliya uu uga abaalgudi karo cid ugu abaalgudi kartaa ma jirto bani aadama yaa u abaalgudi karaa hooyo yaa u abaalgudi karaa haddaad dahabka adduunka oo dhan siiso uma abaalgudi kartid haddaad xoolaha adduunka yaaloo dhan dusha kaga shubto ma abaalgudi kartid in yar xataa abaalkeeda kama gudi kartid cabdullaahi ibni cumar ayaa wuxuu arkay nin hooyadiis dusha ku sida garbaha ku sida oo la dawaafaya kacbada kula dawaafaya oo xajkii la socda oo dusha ku sida markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cumarow hooyaday saasaan u sidaa buu yidhi xajka saasaan ku keenay abaalkeedii ma guday markaasuu yidhi hal harraatiyo caloosheeda markaad ku jirtay aad ku dhifatay maadan gudin harraati miyaadan arag xaaskaagu markay uurka leedahay oo maalin walba markuu uurku soo kordh caloosha soo weynaato tacabkeeda iyo dhibkeeda iyo rafaadkeeda way soo siyaadaysaa ma seexan karto oo si wanaagsan uma jiifan karto oo si fiican uma fadhiisan karto oo markay kacayso waa rafaadsanta oo markay fadhiisanayso waa rafaadsanta saasoo ay tahay wax walba aday kaaga farxad badanta inaad sidaa u dhibto way ku macaansanaysaa cabdullaahi ibni cumar baa wuxuu ku yidhi maxaa yeelay adigu wuxuu yidhi dusha waxaad ku sidaa adoo isleh goormay kaa degaysaayo aad dhulka dhigaysaa jecel inaad dushaada ka dejiso ood dhulka dhigto iyaduna waxay ku qaadi jirtay iyadoo jecel inaadan dusheeda ka degin ee ay ku sido oo dusha kugu wado